maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay shirka ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya ee looga arisadayo doorashada Soomaaliya waxaana war-saxaafadeed soo saareen Jubbaland u dhignaa sida tan dawladda Jubbaland waxay soo dhaweynaysaa kana qayb galaysaa shirarka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee 15 February dawladda Jubbaland waxay ku talinaysaa in shirkaasi uu ka dhaco magaalada madaxda dalka ee Muqdisho si ay uga qayb galaan saamilayda siyaasadda ee Soomaaliyeed natiijo wada galahna uga soo baxdo ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Jubbaland dhinaca kalena gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa ka hadlay shirka ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya in la qabadayo waxaanu ka soo saaray war-saxaafadeedka gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa u dhignaa sida aad la socotaan waxa dhamaaday muddo xileedkii baarlamaanka federaalka iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyadoon heshiis buuxda laga gaadhin qabashada doorashada heer federaal saamilayda siyaasaduna aysan ka wada qayb galin shirarkii ay isku yimaadeen madaxda labada heer dawladeed ee dalka arrimahaasi oo dalka gelidaya xaalad cabsi ah jahwareer iyo hubanti la'aan siyaasadeed haddaba si loo badbaadiyo dalka kow waxaan soo dhaweeyaa soo jeedintii dawlad goboleedka Puntland ee ah in shirka lagu baaqay 15 February uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda iyo bulshada rayidka ah goobjoogna ay ka ahaadaan beesha caalamka si looga arinsado badbaadada dalka heshiisna looga gaadho habraacyada lagu meel marinayo doorashooyinka loo madlan yahay laba waxaan ku baaqayaa in la wada ilaaliyo nabadgelyada iyo xasilloonida dalka lagana fogaado wax wal oo qalalaase ku keeni kara nabadgelyada iyo xasilloonida dalka ugu dambeyntii waxaan taageerayaa go'aan walba oo lagu badbaadiyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed kaasoo ay soo saaraan musharaxiinta xilka madaxweyne dawlad goboleedyada dalka bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi waa Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekhadan Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee